السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي شرفت لي وحرن سديتين مي في عنتين أنا ويدي وناكسنا يكسر هذا فيديو عصوب kala bayno tahay maanta waxa waaye shaqo ma lahayn qof ba ahaa fasax ma ahay kadib fiidiyogana guriga kusoo bilaabaan rabo waan ka gaari waayo degdeg baan usoo baxay ma fahanteen soo wadadaan usoo socdaa idiin soo bilaabay fiidiyoga waa soo baxay ahayd markaa soo baxay shopping baa horta u socdaa marka shoppingka intaan aadin meeshan yaroo qumbaha ah baan soo maray qumbaha aad iyo aad baa u jeclahay soo hal xabo qumba ah oo wada biyaa baan kasoo qaatay ma fahanteen qumbiyan gidaarkan lasoo fadhiistay gidaarka iska ignore gareeya meeshaan waa meel wada iskaga taalo oo iska fool xuntahe waxa waa deyr oo maxaa la dhahay jago lagu ilaalinayo marka albaabkiisa wixiisa dhan waa iska dhinteen qumbaha lee kursi ii dhigay ninka qumbo igu dhaalkan ku cab qumbiya meesha ku cabay waxa waaye waxyaabaha nafaqada loo dhan isla ogaada idin dhihi lahaa ma fahanteen qumbahan waa aragteen saliidiisa si ay jirka tinta ugu tarto marka biyihiisana isla ogaada si inside-ka glowing uga yeelataan soo markaan qumbiya cabi waxay ahayd waan soo baxay meeshan oo magas la dhahaa imaaday ma fahanteen qaybta kabahan ugu soo horeysiiyey walaalayaal 2 bilood baan filayaa shopping ma sameysanin rabadaantii maalmihii ciidku imaanaysa shopping ugu dambeysay aniga dhanba maalmahan waxay hay xanuun shopping ah yacni waxaan ku walacayba shopping ba iga haysay kadib maanta fasax ma aha waniga soo daayay waxaan ku dukaamada magaalada soo wareegaya soo meeshii kabiyaan joogaa kabo badan way haayaan laakiin waxa aniga lugteeda ku qurux badan waan waayay kaba qurux badan way haayaan laakiin wax lugteeda ku qurux badan baan waayo iyo socodkeygii waxaas ku qurux badan ma fahantay soo markii dambe nooc kaba ama soo qaatay laakiin kuwan way isku fiirfiirinay maana kuwa kale ka soo qaatay ahayd anyway meeshii kabii alaabo kale iyo waxyaabo badan baan ka soo qaatay weynka u jeeda bacda la leysay buuxda baa meeshii kasoo iibsaday kadibna waan soo orday saan usoo ordayay waxaan imaaday mool yaro xaafadeena ku yaalo oo kadibna waxaan soo galayd meelaha cabaayadaha lagu iibiyo soo kana waa aniga qofka meeshaas taagani oo isa sawirayso qolo Soomaaliya soo kashay waay inanta yarna Soomaali waay soo waxa waaye magaaladan joogo horta cabaayado qurux badan ma lahan wallahi ana cabaayado wuxuu u iibsadaa isku astur because dhar kale oo aan xidha ma jiraan laakiin cabaayad qurux badan oo olol ah oo shidana wacana ah ma laga helo cidaan waa cid way wada dooq xun yihiin wuxuun bay sitaanuun cabaayada madmadow oo waxaan ku xitaa hal xabo sharaxaad lahayn un baa dadka dhan wada xiran yihiinba labis baday uma ahan cabaayaduba ma fahantu way isku asturaan soo waxa waaye cabaayada shidan maanan ka soo helin laakiin waxa waaye kuwiyaan stay kuna loogu qaadanay waa tana waxa waaye waxaan isdhahay waa loogu qaataa meesha oo yacni wax yacni ku labisan karid taas u jeedaan oo maskiinta ah baa ka soo helay stoorkan gibigiisaba cabaayadaha maanta dhanaan walaaqayay adaab sheegayay batanba marayro macaan leh sharaxaad dayarna iska quruxda badan leh bas wax kale tan ka qurux badan waan waayay soo meeshan halkan xabbi cabaayada baan ka soo qaatay ma fahantiin lacagtii aan soo bixiyay kadibna waan ka soo tagay kadibna waxaan imid bay ahayd stoor kale oo isla moolkan ku dhex yaala stoorkan waa kaas cabaayad badan bay haayaan xitaa kuwa midab leh color leh laakiin adaab sheegay wax shidan oo naf leh ma jiraan soo stoorkan halkan xabbi cabaayadeed u jeedaan oo liliidka cadle iyo mid madow ah oo color kale ku dhex jirin baan ka soo qaatay is asturun ba iga tahay ma ahane cabaayad naf leh meesha ma yaalan saa u jeedaanba yaa waa kaas waa cabaayada iska yar mara fiican laakiin dhiseen qurxan ma lahan soo 2 xabadood cabaayadan meeshan ka soo qaatay iyo 3 xabbi cadarkeed u jeedaan cadarka waa cadar aan ku waashay soo 3 xabaan ka soo qaatay iyo 2 xabbi cabaayadood kadibna waa kaasa moolkii aan ka soo baxay anigoo 3deedii cabaayadood soo walwaalaya bacdi kale alaabta aan magas ka soo iibsaday ku jirtayna gabadhan saaxiibnahayba moolka isku aragnaan u dhiibay because alaabta culays ugu ahayd kadibna waa kaasa kabadana soo raacay ahayd waan ka soo degay meeshii laga baxay mool exit-kii aan ka soo baxnay waxa waaye 7 barkii ahayd maghrib baa iga tagay saa u soo orday gurigii yimid gurigii hadda soo gaaray waa kaasa kabiya iska bixiyay ahayd kadibna alaabtii meel iska dhigay dharkii iska bedelay kadibna horaan jikada ka soo kale waan gaajoonayay kadibna casho sameys baan galay soo halkan waxaan rabaa caawa inaan sameysto biisa yaro olol ah oo la yiraahdo 10 daqiiqo ku sameysaa la dhahaa biisadan ma fahanteen
soo alaabtan biisada ku sameysanaya meeshan kusoo diyaarsaday ahayd. Marka biisada waxaan ka sameysanayaa cajiinkan diyaarsan. Xilligan cajiin iyo qoosh waxaas ma qaraaci karaayo ma sameyn karaayo intuu faxayaaba waqtiya. Soo tan diyaarsan baan dukaanka kasoo qaatay ahayd. Soo biisadan way sameysan tahay daqiiqdu way waa bisayl. Soo maadaama daqiiqdiisu ay bisishahay laakiin ma casa waa la soo bisliyay waa la kariyay ma fahanti qaydin ma ahan. Marka waxaan sameeyaa wax yar oo biyo ah baan ku qooyaa waayo ayadoo saa u qalan haddii ovenka gasho ayada dhan way qarqarxaysaa way kala dhacaysaa ma fahantiin. Soo biyo yar baan ku qooyaa kadibna soosta diyaarsan oo biisada la mariyo baan korka kaga shubay. Intaas soos ma diyaarsanayo wax diyaarsan leh ka sameysana biisadan. Kadibna waa kaasa cheese-kii aan korka kaga daray ahayd mozzarella cheese. Kadibna waxaan korka kaga shubay waxa waaye kalluun Omar oo aan saliidi ka soo miiray. Kadibna waxaan korka ka sii saaray 3 nooc oo barbarooniyaal ah iyo basal oo si dhuudhuuban aan u soo goostay. Kadibna waxa waaye saasan u yara riixay waa isku yara riixay. Kadibna waxa waaye wax yar oo cheese ah baan haddana korka kaga daraya ma fahantiin in yar ma badna cheese-ka aniga markii hore wax badan ku soo daray hadda wax yar oo micno lahayn baan korka kaga daraya. Kadibna waa kana saane biisadii diyaar igu tahay. Biisadan waxaa la dhahaa 10 daqiiqo ku sameyso haddaad degdegayso iyo haddaad nasanaysidba way ku anfacaysaa. Soo hadda wax soo qaatay mashiinka la dhaho air fryer-ka wax yar oo saliidan soo mariyay biisadii waan kusoo dhex riday kadibna wax yar oo chili flakes ah iyo oregano ah baa korka kaga daadiyay. Kadib waa kaasa waxa waaye air fryer-ka kusoo duubaya biisada ma fahantiin. Soo air fryer-kii aan dabka geliyay 170 celsius iyo 7 minute baan ku daayay biisada air fryer-kii. 7 minute kadib waa kana biisadii saan ay kusoo baxday ee diyaar noogu tahay. Waxaan jeclahay in saan igu casaato oo waxa waaye saan shaaxid igu noqoto oo ma jecli cheese-ka cadcadaanka oo dhex fadhiista ma fahantiin. Biisada inuu saan igu shiilman jeclay cheese-ku. Soo waa kana halkan aan kusoo diyaarsaday cashadeedii waa xilli hore waa hadda 8 meelaha 8:20 camal. Soo waa kaas hadda cashadii halkan aan kusoo diyaarsaday. Meesha cashada kusoo diyaarsaday hadda idin sheego waa qosli doonta waa sariirteedii. Intaan miiska yar soo qaaday waxaan soo dul dhigtay koob sharaab ah oo orange oo soo ridqaday. Halkaan waxa igu jiro waa chipsi. Halkaan waxa yeelo wax yar oo mayonnaise oo aan ku cuni rabo chipsiga iyo biisada. Biisadina waa tan plate-kan aan kusoo ritay. Kadibna movie aan rabaa inaan ku dul fiirsado ma fahantiin oo aan biisada ku cuno ma dhuutoolana chipska aan ku cuno movie-yada ma fahantiin. Halkaan iska relax gareynaya maadaama maanta aan fasax ahaa. Halkaan iska nasanaya iska nafisaya adduunyadu orod maaha sometimes waa inaan naftaada u raaxaysid nasatid. Soo halkaan me time ku galay biisadeedii aan iska cunaya saa u jeedaanba. Movie-na waan iga shatay 2 saacadood iyo bar u socon doona movie-yadaas. Soo halkaan asaga enjoy gareynaya videogiisa u jeedaan waa dhamaad. Hadda video ka shan fadlan like saara asxaabtiin la sii share gareeya si asxaabtiina oo qurux badan aan u helo insha Allah. Soo intaan videoga ku xiga ka kulmayno waxaan leeyahay maca salaama. Bye bye, see you soon.